runtii waa maalin taariikhiya weeye waxaynu halkan dhagax dhigaynaa industrial zonekii amba aagii warshada ee ugu horreeyey Soomaaliland laakiin qorshuhu waxa weeye in gobol kasta magaalo madaxdiisa laga sameeyo kan oo kale marka kan waa barbilow waxaan doonayaa halkan inaan uga mahad celiyo oo ku bogaadiyo cid kasta oo ka qaadatay door sidii loo dhisi lahaa cagaha loogu taagi lahaa aaggan warshadaha waxaan si gaara u xusayaa wasiirka maalgashiga wasiirka howlaha guud iyo maayarka sideedaba warshadaha iyo horumarku waa lamaane ma kala hadhaan waddamada qaar horay u mareen qaarna jidkay hayaan qaarna waa gaabisoo xagga dambe ayay ku jiraan taasina waxay ku xidhan tahay heerka dhaqaale ee dowlad walba amba waddan walba dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasaa amba xagga kharashka laga qiyaasaa amba xagga dakhliga marka laga qiyaaso waxa weeye waxaa la isu geeyaa wixii mushahar oo dhan iyo wixii kiro oo dhan ujuurooyinka oo dhan iyo macaashka oo dhan markaas baa waxaa ku soo baxaya guud ahaan waddankaasi wuxuu soo saaray waxaa la soo saaray waxay ka yimaadaan amba beeray ka yimaadaan amba xoolay ka yimaadaan amba kalluun bay ka yimaadaan amba macdan bay ka yimaadaan amba adeeg bay ka yimaadaan amba warshade ka yimaadaan warshaduhu waa waxa la xidhiidha horumarka innaku waxaynu nahay dalka ka midka ah dalalka ugu warshadaha yar leh guud ahaan waxaa ka soo baxa warshadaheennu waxay ka kooban yihiin 3% keliya dhaqaalaheenna guud dunida marka la isku celceliyo waddamada isku celcelintu waa 30%. marka dunida isku celcelintu waa 30%na waa 3 halkaa waxaa kaaga muuqanaya faraqa iyo sida aynu u dambayno waddanka Shiinaha waaba 40% weeye marka su-aasha meesha taalla waxa weeye maxayna hor taagan waynu ugu biiri lahaynaa waddamada warshadaha jawaabtu waxa weeye oo ugu horreeya waa dhulku waa qaali qofku warshadu doonayo inuu sameeyo wax laga yaabo inuu kaba qaalisan yahay qiimaha dhulka uu u baahan yahay dowladdaasi ma dhiiri gelinayso in waddanka warshada uu yeesho arrinkan maanta halkan u fadhinaa taas buu xallilayaa mashkiladda dhulka ayuu xallilayaa waayo qofkii inuu dhulka lahaadaba uma baahnaba waa laga kiraynayaa hadduu doona wuu dhisan karaa marka arrinkaasay xallilaysaa waxaa kaloo inaga hor taagan maalgashi kuwa fikirka ayay doonayeen warshad samaystaan waxay u baahan yihiin maalgashi bay u baahan yihiin dhaqaale amba mid ay iyagu leeyihiin amba mid cid kula shuraakoobaan amba mid ay deynsadaan intuba way nagu yar tahay guddoomiye wixii waa u fududaynaynaa bangiga waa intii uga mahad celinaynaa waxaa kaloo ina hor taagan xirfadda aqoontaynuu leenahay warshadaha waxay doonaanba ha sameeyaanbabe oo had iyo jeer inuu kalifta inuu dawladda ka keeno dad xirfadlayaala waxaa kaloo ku xigo halkan hore looga sheegay korontada qiimaha korontada innaka iyo Etoobiya oo korontadu ay tahay 5 senti inana ay tahay 70 senti ma wada tartami karro waxayna wada tartami karaynin aad bay looga jaban yihiinoo ma gaari karro marka taa laftigeedu waa caqabad weeye suuqeenna oo kooban isaga laftiisu waa carqalad aqoonsi la-aantu iyada laftigeedu waxa weeye waa carqalad weeye furitaankan aynu xadhigga ka furayno aanu dhagax dhigayno maanta aaggan warshadaha waa bilow hawshu haddun bay bilaamaysaa intaa loo cayimay aagga warshadaha waxay noqonaysaa in la soo deyro in la naqshadeeyo in la dhiso kaabayaashii loo dhammeeyo biyihii la keeno korontadii la keeno telefonkii iyo internetkii la soo gaadhsiiyo intaasoo dhamme way noo dhimantay waxay noqonaysaa markaa meel bay noqon doontaa la maamulo meel iska cidlaa maaha
qofku meesha doona wax ka samaysan karo waa meel la maamulo sida loo maamulo aagga warshadeeda caalamka oo dhanbaba ay noqonaysa waa tallaabo maanta runtii taariikhi aynu qaadnay maanta bishu maanta waa 9 waa maalin axada bisha Oktoobar 2022 runtii waa maalin taariikhdeena ku santan ayay noqon doontaa haddooyna runtii inaan ku dhiirigeliyo muwaadiniinta ku hamiyeysa inay warshada samaystaan in hadda loo fududeeyey oo ay dardargeliyaan sidii ay warshada halkan uga samayn lahaayeen waxaan kaloo runtii aan ku dhiirigelinayaa wasaaradda warshadaha iyo maayarka iyo howlaha guud iyo wasaaradda gaadiidka iyo cidda kale khuseysaba kaabayaasha lagama maarmaanka ee loo baahan inay u dhammaystiraan insha allahu ka dambe hadda halkan oo kale aynu isugu iman doonaa innagoo maalintaa aan dhagax dhigaynin dahna furaynin aagga warshadaha laakiin warshad dhaba furayno ka markhaati noqon insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu